بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والله waa mahadsanyihiin murashaxiinta saaxiibada ah iga horeeyay hadallada intii muhiimadoodii iyo intii badneed iyaga qaatay anigu waxaan rabaa inaan maadaama aan ahay murashaxii ugu dambeeyay ku soo biiray murashaxiinta u taagan madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug runtiina in badan aan u ahay xog ogaal processkii qaabkii loo soo maray Galmudugta maanta meesha ay marayso inaan wax yar oo xog ogaalnimo aan ku daro walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego processka maanta meeshan maraya wuxuu soo jiitamay muddo ka badan 2 sano iyo bar wuxuu soo maray heerar kala duwan 2 sano iyo bar ka hor Galmudug waxay haysatay caqabad cadaado iyo dhuusamareeb aan waxba iskugu darsanayn in tilaabada laga gudbo waqti badan baa loo soo maray dad badan ayaa waqtigooda ku lumiyay naftooda riski u geliyay tanaasulaad badan sameeyay dhaxan iyo bacaad iyo duur u jiifay in far badan aakhirkana waxa lagu soo dhameeyay alxamdulillah in halkan la isku keeno dadkii la tanaasulsiyo maxaan ku raahdaa qaybihii Galmudug dhinacyada kala duwanaa nin walba rabitaankiisii in badan oo kamid ah laga tanaasuliyay ee halkan la keenay waxaad xusuusataan walaalayaal heshiiskii lagu soo gaaray Djibouti ee cadaado iyo dhuusamareeb la isku keenay dhuusamareeb xildhibaanadii 89 ka ahaa ee Galmudug lahayd inay gaareen 120 xildhibaan taasoo looga gol lahaa in mar uun caasimadda la iskugu yimaado oo wixii qaldan oo ziyada gadaal laga sixi doonaayo bal hal mar halkan wax la isku keeno deetana waa tan hadda ra'iisul wasaaruhu xilligii uu yimid lagu loo qalab qaatay in la dhameystiro Galmudug wax badan baa ku baxay qarash badan baa ku baxay juhdi badan baa ku baxay muddo 7 bilood ah ayaa hawshaas la waday waxaan rabaa saaxiibaday dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadeeda khaasatan xafiiska ra'iisul wasaaraha senatarada iyo xildhibaanada ka soo jeeda dawlad goboleedka Galmudug in ay u tuuraan shacabkan masaakiinta ah ee iska dayacan kala qaybsanaanta iyo colaadda iyo abaaruhu ay halakeeyeen waxaan rabaa inaan idin sheego bilowgii dib u heshiisiinihii halkan yimid ilaa iyo gabagabadeedii dadka ku lugta lahaa ee barnaamijka processka dib u heshiisiinta waxay ahaayeen dad yar oo aad u kooban waxaan idin sheegayaa dadkaas inaan aniga ka mid ahaa maantana murashax baan ahay in fara badan oo saaxiibadeedii ka midana way cadaawad bay arkaan inaan processkaas aan qayb ka ahaado dhameystirkiisa waxaan rabaa inaan idin sheego si aan u sheego senatarada saaxiibaday ah iyo xildhibaanadaba damiciina siyaasadeed inaadan ku khasbinina dartiis Galmudug inaad u dhigtaan sida aad rabtaan u fasaxa xildhibaanada la soo xulay ee aan ognahay inay cabsi ku nool yihiin nin walba uu aaminsan yahay in jib lagu xiray oo xataa uusan ku salaami karin uu leeyahay waa la arkaya waa la ii jeedaa waa la daba socdaa kaarka la igala noqonaya ma la ii ogolaan doono inaan doorasho galo haddaan ku salaamo arrintaasi waxay duminaysaa Galmudug ma ahan mid Galmudug dhisaysa waxaan leeyahay xildhibaanada dawlad goboleedka Galmudug ee 89 ka ah aan ognahay duruufaha dhibka badan ee lagu soo xulay aan dhihi karno dulqaad badan bay muujiyeen reer Galmudug si ay processkaas u aqbalaan ogaada waxaad tihiin xildhibaano mas'uul ka ah masiirkii ummadda reer Galmudug waxaa la idinka rabaa inaad ogaataan inaad fikirkiina iyo go'aamadiina aad xor u tihiin aan saameyn gaar ah uusan idinku yeelan karin xildhibaan iyo senator iyo wasiir ka soo jeeda dawladda federaalka ka socda shaqada Galmudug adikay idin gaar tahay juhdi badan baan ku bixinay runtii inaan heerkan idin soo gaarsiino ma ahan marka inaad shaqadiina garan weysaan wixii maanta ka halaaba halkan hadhowleedii kama yeeli doono dawladda federaalka iyo senataro iyo xildhibaano ayaa pressure-na saaray leedii kama yeelay go'aanka adika iskale adduunyo aakhira la idinku la xisaabtami doonaa shacabkuna wuu idinku xusuusan doonaa waxaad ka samaysaan Galmudug baarlamaan hore lahaan jirtay waa ogtiin oo cadaado lagu soo dhisay
dhuusamareeb baa la keenayoo tiradii haddana laga sii badiyey teeramkiiaa dhammaaday tanaasulaad bay sameeyeen runtii madaxweyne xaaf iyo culamaauddiinka ahlusunna waljamaaca ee dhuusamareeb joogay qabaa'ilka galmudugna tanaasulaad ay sameeyeen inay aqbalaan inay dhuusamareeb yimaadaan si galmudugtaas loo dhiso dadkii tanaasulaadkaa sameeyey dhididkoodii iyo maaragtay xuquuqdoodii aad xildhibaano ku soo baxdeen waxaa laydinka rabaa xildhibaanadii 89 ahaa ee cadaada lagu dhisay dhibaatooyinkii ka jiray inaadan daba kicinina oo aad waddo cusub furtaan waxaan idinka codsanaynaa inaan laydiin cagajugleynna aadan aqbalinina maalinkaa xildhibaan noqotay oo lagu dhaariyey ilaahay dartiisaad u dhaaratay kutubaa gacanta lagu saaray cid kale oo maalintaa ka dambeeda kula xisaabtami karta oo aan alle ahayn ma jiro iyo shacabka aad matasho aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan dowladda federaalka mar kale ka codsanaynaa annagoo og duruufihii la soo maray broseeska inta ka haray inay noqdo mid barax tiran oo hufan oo aan cabasho lahayn lagana qaybgeliyo runtii dadka murashaxiinta ah ee u taagan inay xilka dowlad goboleedka galmudug qabtaan fikradahooda in la tixgeliyo laga qaybgeliyo lagu qanciyo broseeska wax lagu wado inuu xor iyo xalaal yahay sidoo kale waxaan codsanaynaa goobta lagu qabanayo doorashada inay noqoto goob loo siman yahay amnigeeda ay mas-uul ka yihiin ciidamo dhexdhexaada cid walba oo dan ka lihii ay tegi karto laakiin aan la oran karin hebel ha la celiyo hebelna ha la soo daayo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq